الله أكبر الله أكبر الله أكبر أدور أنت ولا مش شغال هين أدور أنت مش شغال مال جوجل هاي قفكي تجا إنه أنت كل هالك سوق هذا marka aad baahataan iyo marka aad gaajotaan iyo marka uu dhaawac ku gaaro waa inaad isku dhiirigelisaa adiga oo tababarka ku jiro kale oo aad erayadan qaadaa laba qofood marka tiino meel ku jirtaan oo aad tagtaan qalbiga bini'aadanka sidiisa waa warwareega hadaa iska fariisato oo aadan shaqeynin oo ama waxa ku soo dhacay waxyaabo negative ah maxaa dhacay maxaa inta ku keenay maxaa yeelay waxa ku keenay wixii uu tababartay askari in la xiro oo la xukumo ama maxaa la yiraahdaa lacanaanto waxa ugu daran shayga fulinimada ah in loo canaanto ama loo xiro ninka qofka ciidanka qoranaya sidiisaba qoriyo doonahay moogtaa waana tababaranay waxaasi jalaata ma gadin jalaata aad gadow ma aadin waxa mamnuuca ka ah oo xaraanta ka ah qofka qalad uu gali karaa dambi kale uu gali karaa damiirka maaragtay qofka bini'aadanka ah iyo iimaanka qofka bini'aadanka ah macnaheedu ma aha inay ka ilaalihayaan inaa qalad ku dhacda ma aha laakiin waxay ku diidayaan inaa qaladka ku raaxaysataa inaa qaladka aad gashay aad ku si indha adkaatay ku diidayaan damiirkii iimaanka waxaasi ku diidaan mogi inaa bini'aadan tahay qofka uu qalad ku galaa qaladkaas marka haddaad ku raaxaysatay damiirkii iimaanka ka guuro waa ciidanka marka aad joogtid marka ruuxdaada iyo maxaa la yiraahdaa naftaada waxaad u hibaysay inaad dadka ku ilaalisaa oo bulshada ku ilaalisaa oo shacabka iyo dalka iyo dadka waxa ay ka kooban yahay dawladdu wixii ka kooban tahay oo dalku ka kooban yahay inaad ku difaacdaha loogu talagalay moogta waa huba ciidamadiina tababarka fiican soo qaatay inaad guuleysanaysaan marka dagaalka aadaan ciidanka xoogga dalka dhanna sidiisaba waxaa loo uumay inuu guuleysto sidiisaba guushaasi si aad u guuleysato marka waxay u baahan tahay inaad qorshaha taliska aad raacdaan inaad diyaar garowdaan iyo inaad rajayso oo aad sawirato inaad guuleysaysid haddaadan adiga ay ku sawirnayn oo adiga aad dadka negatifka iyo hadallada xun sheegaya ay kula qumanaadaan guushaadii dhaawacay inaad islaam tahay oo Soomaali tahay oo nin madow Afrikaana tahay ayaad ku tahay qof guuleystay qofku anaga Soomaalidana waa wiligeed idoonan markii in dawladda intaan helin ka hor markii la halgamay geelida halgami jirtay wiligeed Allah hadiyo dadka awooyaasheen ahaa halgami jiro dagaalami jiray tababar ma qabin wax gaar ah qabeen male wixii diidanayeen in la gumeysto Allahiina abuuraya marka na siiyay karaamo iyo sharaf qofan ka helin inuu karaamadeen ku xadgudbo ma nimankaas argagixisada ah ee raba inay dadkeena iyo dalkeena dhibaato u geystaan waa diidnay warkooda maxaan dhahnay waa diidnay warkooda warkooda waa diidnay ma rabno qofka Soomaaliga naqda ee islaamnimadiisa toosnaato iyaga kamidana Soomaalinimadii ku soo dhaweynina qofka raba inuu dadkeena gumeeyo oo mid oo baahi ku dila iyo mid oo dhiba ku dilane ma ka yeelayno wala dirirayna waxa la rabaa inaad dagaaladii sidoo taliyaha tilmaamaha uu bixiyay dhamaantood la qaato oo dagaaladii la aado oo aanan sideedana mushkilaadka iyo caqabaadka qof haduu xanuunsado haduu jirado haduu yeelo waxa soo dhan waa waxaan laga fakar karin bini'aadan oo dhan inta nooshahay sideedaba marad xanuunsato iyo marad duruuf ku haysato waa marka duruufaha wax laga fogaan kara maaha wax kugu dhacaya waa ina isdhiibtaa waa waxaan la fikirin qofka inuu isdhiibo oo duruufta isku dhiibo oo iska aqbalo inuu mushkiladan isaga jiro taas waa tan la fikirin ee duruufta wax laga fakar kara maaha qofka isleedahay adduunyada ugu hantiyo haysta oo wax haysta mushkilad ka badan haysta qof kasta inta gubta hostal geed kasta marka nimayahu guuleysta ayaantan dhowrkii maalin la soo dhaafay waxaan joognay gobolkan Shabeellada Dhexe gobolka furumaha iyo meelaha ciidamada ay sidoo kale u joogaan meel u tagnay nasiib darro waa runta mana ah in la sheego qaar kamid ah la xiray in taliyo horinaha iska tagay sidiinaba xataa taliyihiin ugu weyn haduu tago adoo dhinto wala ma shaqay lahayn haduu dhinto shaqada ma la joojin lahayn qofkii taga inuu dhinto kala la soo qaadaa qofka joogo waa inuu sidiisa u hoggaan u yahay qof kasto ciidanka xoogga dalka ah wuxuu nool yahay dhahna inuu guuleysto defaultena ku tahay inuu guuleysta Soomaaliyana ha noolaato waana ku amaanantii runtii inta joogtaan nimankii fulinimada loo xira waa
يعني قف عيدنا إن نحن فلي ما إسقاطنا عيدا واي فلي وبركي أصدق عيدا إنه قاتل مكتب أو توبر قالوا قرر لوديو كو أو بحصدي أو حمر عادي واحد حريين حقك حريين كوينا أنت جوجا تليه هو أركيسان سيدو أو إذن لا تعاطفاي أو إذن راديناي أو ظروفتين إلى عليها لما نو هذا جرنت سيدا لو داويناي سيدا لو دب السعودي اختار لو كان iyo waxa soo markaa fiiriso inta awoodi macnaha madaxdiinu intay awoodi sameeyay waa macnaheed intaan la awoodin waxa la soo maray soo taliyo sheegay xillan lacag la qaadanayn oo haddana barba heer la soo gaarsiiyay marka nimayo guuleysta ramadaan waa lagu jira dhinaciina iyo dabal naga soo gelin waa ma santiin guuleysta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar